إله المولى ضررات المسكين يمكن أن كسوين مقال عن الله مقال عن الله مية مقال بكيد بحي الله مية مقال بكيد بحي الله لا عبرة النبي قال الله كرم مثله الله عركة كي دعي بركة الله إله النور يبطل كالبحيري الله النور يبقوا دعي وخوف السواد شريف الله النور الله النور قال ماذا بديش بلغة إله الدرين اللي ينوشه قال كالقيل النور إله كيش ينوشه إله ربنا يلا هدين لوين إله بالكبور الجد يلا ردت إله أين هديد يلا ويدت هو اللوين إله سجية آل لوين إله ودتك الآن لوين إله بالكبر كنه وجد إله بالكبر كنه وجد إله بالعلم مرق النوقف إله وباس الدوال عند غفور إله ونقد الخاء إله وروك النوئر إله يهود آي برك الإله إله ونقى أكبر إله ونقى أجيب إله ونقى أجيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فاتحة intii ugaaska iyo waqtiga galbinaya aynan ka ambabixin goobtaasi loo yaqaano nirgaaley waxa booqashada ugaaska ugu yimid aan wax ka weydiinay xubno ka mid ah dadka degan goobtaasi nirgaaley waxa weeyaan si fiican baa arrintan u dhacday dadka nabadna soo booqday si fiican baan u qaabilay ugaaskuna wanaagsan yahay iyo inta kale welinaysay annagu oo ku martiqaadnay wixii aan la joognay oo la yidhaahdo laxta la yidhaha dharo annagu oo joognay nirgaale meesha ilaahayna dhigay abaarta mooye wax kaleetoo dhibi aynan haysan dhaxlaayo gabadh ka qaadin oon suulimaad ku soo helin oo 9 oday ka hadhay yaan boqorada u dhisnaa ku martiqaadnaa maalmaha ayna soo booqdaan ugaaska halka ay noogu keeneen walaalahayo ee noo soo booqasho geeyeen oon halkaa ku martiqaadnay gobolka la yidhaaha nirgaale si fiicanna way noogu duceeyeen waanan ku kala tagnay walaalahayo magacayga saddexan axmed carab maxamed waxaa u timid ugaaska shaabaar siyaan ugaaska u salaameeyaan oo gacan magacayga saddexan badiyan xataa هاي واحد تصور بس الله يروح هاي كلا بس هاي كلا فقط لبوا تكتمي أفرتين قال واحد ugaaska Mustafa Maxamed Ibrahim waxa uu habeenkii dambana booqasho taasi la mid ah uu ku tagay goobta la yiraahdo eel aadeed oo ka mid ah degmada aad ugaaska oo meel kasta oo uu tagaba si diiran loogu soo dhaweeyay iyada oo waliba dadku ay ka cudur daaranayeen abaarta ba'an ee halkaasi ka taagan iyo waliba waqtiga loo soo sheegay imaatinka ugaaska oo aad cidhiidhi ugu ahaa
safarka eelcaadeed iyo ujeedooyinka laga lahaa waxaa warar faahfaahsanay naga siinaya abubakar fariid buur oo ah taariikh ururiye xagga dhaqanka ah oo booqashadaasi isaguna ku weyneenaya ugaaska taariikhda iyo sooyaalku sida uu tilmaamayo waxa aan maanta joognaa guriga muuse wacays oo ka mid ah reerka lagu soo hooyo ee looga liso sacaleefa sacaayo loo tiriyo bir ka soo jeeday xoolihii wiilsha ciise oo loo soo lisay 18 ogaas waxaan hadalka u gudbinayaa Roble gudoomiyaha Mustafa Maxamed Ibrahim Owaas caawan ku soo hoynay ficil loo lisay caanish baa noo keen Mustafa caanish loo lisay waa gudoon waan gudoomay caanahaasi duuli ma aha 18 boqol baa ku horeysa waa kuwii loo lisay kuwii boqorka loo lisay weeye ilaahay barakadooda iyo barakadiisa iyo intaa barakadooda ilaahay baan barinay ilaahu naga aqbal allahumma salli ala muhammad dabayshana laba saran haysteena dilka ilaahu roob nagu deeyo saranka cadaha naga gudubay ilaahu rays nagu deeyo الدنيا يبكي بديق بان قال إله ونقبل كوانا بريجيش كسور ريال إله كويدي كي بقر راك كيس الرئيس الكوس عنا كبار وحد عاد حريص جمي نل كمان تلجي ده يبن بيشان حريص جمي أنا النوجة دبان حريص جيت في خير صلاة إله ونقول إله ونقول بقر سنة بقر في جري ما إله خير كي جيب إيش قال يا مسلم ولا أدمك يبجيس عن الوجه سنين ما يقول أي سعوت الله فدي لكن اللي هرجوك سنين بنخدمنا في العادة بعيد العادة بعيد على ذوق قصنا هذا نخدم في قال يا مسلم ذوق قصنا هذا بنخدمنا دعائنا ونوضم من شيء لما كانوا قدرنا دعاء كانوا غيرك وندعينا نقول من دعاء سننا شعي يا نؤمننا عاني سوانا عني تاريخ دينا ونؤمننا وحنا قدمنا الصبح بسننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته goobta eelcaadeed oo ka mid ah caad waxaa ka muuqata abaarta iyo nabaadguurka ka dhacay dhul badan oo degmada ku yaala haddana waxa ay ahaan jirtay sida lanoo sheegay dhul dadka iyo dunyaduba ay ku reeyaan oo nimcaaleyda ama xoolaha la dhaqdo ari iyo ishinba laga helo booqashada ugaasku ku jiray eelcaadeed waxay ahayd kaalintii saddexaad ee socdaallada ugaaska ee loogu magac daray caano iyo caddiin halkaasi oo ugaaska loogu soo lisay caanaha sac ka jooga dilkii sicii leefa caadadaasi oo tilmaamaysa in caanaha iyo caddiintu ama hilibku ay yihiin qutul daruuriga dadka reer miyiga ah eelcaadeed qudhiisu waxa uu yahay dhul aan ka fogeyn tuulada mille waxana ay u jirtaa ilaa iyo 42 kilomitir inkasta oo abaartu ay jirto haddana dadka reer eelcaadeed waxa ay jeclaayeen in ugaasku uu la sii joogo oo ay sooriyayaan oo waxa ay ku doodeen in ugaasku ilaa iyo 3 habeen uu xaq wada bariyo